Ruushka ayaa weerar culus ku qaaday waddanka Ukraine 24-kii bisha kadib khudbad uu sii daayay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin taas oo ka dhan ahayd waddanka Ukraine. Muddo yar kadib khudbaddii madaxweynaha, waxaa ku bilowday Ukraine weerarro madaafiic ah oo kaga bilowday badda, cirka iyo dhulka, waxaana la beegsaday saldhigyada difaaca hawada iyo xeryaha militariga. Madaxweynaha Ukraine ayaa xaqiijiyay geerida 137 qof oo isugu jira ciidan iyo shacab maalintii shalay ahayd. Sidoo kale waxaa khasaare soo gaaray waddanka Ruushka sida warbaahinta caalamiga ay ku soo waramayso. Wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in ciidamada Ruushka ay gudaha u galeen caasimadda Ukraine ee Kiev. Wadamada dadkoodu ay joogaan waddanka Ukraine ayaa la soo warinayaa inay kala baxayaan shacabkooda. Sidaas la mid ah, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in ay iyaduna doonayso inay kala baxdo dad 300 oo qof kor u dhaafayo oo halkaa ku sugan. Xaaladda waddanka Ukraine ayaa aad u xun. Madaxweynaha waddankaas waxaa la soo warinayaa in uu codsaday in xabad joojin uu sameeyo madaxweynaha waddanka Ruushka ee Vladimir Putin.